sarkaal ka tirsan aqalka cad dowladda Mareykanka ayaa iscasile kadib markii ay fadeexado soo waajaheen faahfaahinta waxa magaalada Hargeysa ugu diyaarisay wariyahayga hana khayrdoon xubin kale oo sare oo ka tirsan aqalka cad ayaa iscasilay eedeymo la xidhiidha tacadiyo uu geystay xaaskiisii hore awgeed. David oo ah nin khudbadaha qora ayaa beeniyay eedeymaha ay u soo jeedisay xaaskiisii hore. Waxa uu sheegay in uusan doonayn in uu caqabad ku noqdo maamulka madaxweyne Trump, taasina ay tahay sababta uu isu casilay. Arrintan ayaa waxa ay bilaabantay toddobaadkan kadib markii ay soo baxeen warar ku saabsan in xogayaha shaqaalaha aqalka cad Rob Barton uu tacadiyo u geystay labadiisa xaq. Markii hore aqalka cad ayaa difaacay balse markii dambe isbedelay kadib markii ay haweenay soo saartay sawir. Mr. Barton ayaa iscasilay inkastoo uu diiday eedeymaha, balse madaxweyne Trump ayaa fadeexadan ka dhigay mid sii jirta kadib markii uu ammaanay Mr. Barton isagoo oo aan cambaarayn ficilkiisa. Madaxweynaha ayaa sheegay in uu shaqo wanaagsan qabtay balse uu wanaag u rajaynayo mar walba. Mr. Trump ma uusan carabaabin labadan haweeney eedeynta soo jeediyay, taas oo dad badan ka cadaysay. وهنا خير دون